بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان كقيب قلياشا قوشن قرحة بدن باشا سحولينو فديين اسم ماذا صلادين تا يولبين تا بلشدن باشا ويه ماشا سكوكو تمد وحانكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan halkan uga mahad celinaynaa walaaladeen ama beesha saxowle salaadiintooda gogol nabadeed maanta halkan noogu dhigay si ay dhibkii haystay muddada dheer ama 4 sano ugu dambeysay iyagoo dulqaad badan sameeyay isxakameeyay carabkoodii gacmahoodii iyo adinkoodiiba ka ilaashaday walaaladeen beesha geri inay maanta noo soo bandhigaan iyagoo gacantoodu nabada hal mar aan duulaan samaynin hal mar aan xoolo qaadin hal mar aan qof gacan ku laacin waxyaabaha faraha badan ee ay noo warameen ee dilka iyo dhaawaca iyo boobka uu ku jiro intay socotay guryahooda lagu samaynayay ama beerahooda dhexdeeda lagu dilayay inay dulqaad intaa lag intay sameeyaan maanta wixii ay qarsadeen markay qarsoomi weyday inay beesha hawiye walaaladooda bannaanka u soo dhigaan way ku mahadsan yihiin waa dhaqan beesha hawiye ay leedahay waa dhaqan soo jiri jiray ugu dambayn in markuu dhibku soo raago hawiye loo bandhigo dhaqankeenna soo maa nidaamka beesha saxul way ku mahadsan yihiin runtii kalfadhigan waa kalfadhigii labaad mid baa ka horeeyay ay akhbaar nagu siiyeen kaana hawiye wuu dhageystay laakiin howlgal fiican kama samaynin siday iyagu rabeen inaan wax u qabanno uma qabanin hadday dacwad tahay haddii ay soomaalida kale in lala hadlo tahay salaadiinta beesha hawiye ma samaynin walaaladeen markay taana ogaadeen waxay is yidhaahdeen malaha hawiye arrinkan uuna si fiican u dhuuxin ama u dhuganin mar kale aan ugu celinno taasay haddana mar labaad gogosha noogu dhigeen annaguna tii horena uwaaska beesha saxowle iyo beeshiisa waxaan u sheegaynaa inaan fahanay inaan la soconno inaan wax walba xoogaal ka nahay sidiina umbaan dulqaad samaynaynay annaguna dulqaadkii aad samayseen unbaan annaguna waxaa weeyaan samaynaynay hadda waxaan u sheegaynaa beesha saxowle meesha fadhida sharaf baad leedihiin gob baad tihiin dad nabadgeliyaad tihiin dad darisnimo u wanaagsan baad tihiin dagaal sokeeyana ma wanaagsana faa'iidana ma keenayo aakhire iyo adduunba waxaa weeye in dhibka faraha badanee soo noqnoqday waxay u jirtaa daaqate tusaale ahaan caasimadda dowlad deegaanka soomaalida looga taliyo waxay u jirtaa qoolaj ama daaqate 67 kilomitir oo keliya waa meel u dhow xarunta deegaanka looga taliyo waxay ku taallaa istiraatiiji laamida isku xidha deegaanka soomaalida iyo etoobiya ayay ku taallaa iyo oromiya ama etoobiyada guudba macnaha waxaan u jeedaa xukuumadda deegaanka soomaalidu waxaan markhaati ka nahay habeen iyo maalin dhegaheennu maqlayaan indhaheennu u jeedaan meel uu hal nin ku dhintay inuu madaxweynuhu tego oo hoggaanku tego wasiiradu tegaan 24 sac gudaheedna lagu dhammeeyo hadday dhul tahayna la xukumo hadday colaad biyo tahay ama ceel tahayna la dhammaystiro oo beelaha meesha ku dagaalamayn 24 sac gudaheeda lagu heshiisiiyo ayaan ognahay markhaati ka nahay marka 4 sano si taxana ah maalin walba daaqatay oo caasimadda deegaanka soomaalida u dhow inuu dil ka socdo dhaawac maalin walba uu jiro 1,050 neef beesha saxowle nabad raadin ay u bixiyeen oon ognahay oo markhaati ka nahay in xukuumaddu iyadoo og xogogaal ka ah ama howshaaba gacanta ku haysa inay 4 sano dhammayn weydo waa nasiib darro
waxay ceeb ku tahay maanta xisbiga barwaaqo, waxay ceeb ku tahay xukuumadda deegaanka soomaalida, waxay ceeb ku tahay guurtida deegaanka soomaalida. runtii waxaan dhihi karaa hagar baa ku jirta mooyaane dowlad xumi ama maamul jilicsan baa meesha ka jira ma dhihi karo. sababtoo ah qabridaar dil baa ka dhacay, goday sidoo kale, wardheer, dhagax buur, maxaan ku dhahday doollo. qaabka loo xakameeyey ama loo xaliyey iyo wakhtiga gaaban ee lagu gabagabeeyey ayaan ognahay. in tanoo caasimadda hoosteeda 4 sano beesha Saxowle guryahoodii beerahoodii dhexdeeda lagu laayo, lagu boobo, lagu dhaawaco, dhibab kala duwan lagu gaarsiiyo, oo xukuumaddiina meesha uun taagan tahay maalin walba, xukunna uuna jirin. dhaxeeyo walboo la keenana markuu arrinka meel gaarsiiyo, gaadiidkii iyo kharashkii iyo saadkii loo hayay uun lagala noqonayo. dhaxeeyo walba isagoo sidee noo cabanayo uun halkaa uun ka dhexbaxayo. marka waxaan leenahay arrinkaas far baa ku godan xukuumadda deegaanka xisbiga barwaaqo. ha isku noqdaan, ha xisaabtamaan cidday u xil saareen hawshan inay dhammayso 4 sano dib ha u eegaan. saasaan leenahay tana. tan kale beesha Saxowle waxaan leenahay hadda waxaa noo soo dhow roobkii, xilliga gugaan galayna insha allah roob fiican allahna siiyo. tanna xalkeedu maanta unbuu dhow yahay. waxaan idinka rabnaa sidaad 4 sano ee ugu dambaysay isku xakamayseen inaad maantana isku xakamaysaan, carabkiinni ilaashataan, gacmihiinni ilaashataan, weji xunna aad iska ilaalisaan. arrinkiina hawiyaad soo gaarsiiseen, beesha hawiyana insha allahu tacaala si nabadgeliyaa, waddo nabadgeliyaa ee xaqana lagu helayo, dulmiguna ku hadhayo ayay insha allah ku dadaali doontaa. nuxurka shirkeenna oo dhammaystiran ama ujeeddadii oo la soo koobay baaqaasaa lagu soo jeedin doonaa. baaq macnihiisu suldaanka idin sheegay waa wixii oo la soo ururiyey oo la qodobeeyey. cid walboo waxaa weeyaan arrinkaa loo jeediyey in ay wax ka qaban doonto wey insha allah sidaan filayno. waa haddii la danaynayo nabadgeliyada labada beelood ee walaalaha ah weeye. beesha Saxowle arrinkiina hawiyaad gaarsiiseen,